muuqaal ku aadan qaabka uu u dhacay qaraxa ismiidaaminta ee lagu weeraray taliyaha booliska ee gobolka banaadir kaasoo goordhow ka dhacay magaalada caasimadda waa Soomaaliya ee Muqdisho qofka ismiidaamiyey waxaa la sheegayaa in kolkii hore amiiru uu ahaa taliyaha booliska ee gobolka banaadir ee hadda uu ku weeraray ismiidaaminta kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaa idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo subxaan allah subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryeynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaadda uu barakeeyo inta awlaadoonkana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta gurdoonkana gur wanaagsan mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba muuqaalka sheerka ku qabtaa la gareeyana waxaan rabbi subxaanahu wa ta'aala aan kaga baryeynaa mal adduunyo ay tifileen inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiya dambigood iyo dambiga waalidkoodana ee buu dhaafaa rabbi subxaanahu wa ta'aala uu ku azumaa jannatul firdaws ala xaasidka waxaan leenahay wa min sharri حاسد إذا حسد الحاسد لا يفرح بإذن الله الكريم وحكود بين هوجي غسارة ورب سبحانه وتعالى عن كعبرينا مقدسه وعجور لو كده حيقرح اسمي دامنا كاس والله جوا يرري تليها بوليس كجبل كبنادر فرحان محمود قرالة ويرر كاسمي دامنتا وكده عايز جوز كبنادر وذاك بحذو عدي استال المدينة مقالة مقدسه وأنا قرح على لا إكتاي كلية جديدة ولا سعودي تليها بوليس كجبل كبنادر وبجوجيال أي شيء جاي اسمي دامنتو وفليه قف soo miidaamiyay taas oo watay gaari nooca raaxada oo dhaxda ka galay ama bartamaha ka galay gawaaridii galbinaysay taliyaha booliska gobolka banaadir inkastoo farxaan qoroole uu watay gaari bulburuuf hadana waxa qaraxa saameyn weyn uu ku yeeshay gawaaridii dagaalka ee galbinaysay taliyaha booliska gobolka banaadir farxaan qoroole waxaana sidoo kale burbur uu soo gaaray qayb ka mid ah gaariga bulburuufka uu watay taliyaha booliska gobolka banaadir masar qoroole oo goordhow warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay inuu caafimaad qabo isla markaana uu ka badbaaday dagii la doonaya in lagu qaarijiyo soo isla markaasi xusay in arintan aysan waxba u keenaynin hoosha uu hayo qaranka Soomaaliya sida hadalka uu u dhigay farxaan maxamuud qaroole taliyaha booliska gobolka banaadir goobjoogiyaal xoogaal ayaa xaqiijinaya in askar badan oo kamid ah kuwa ilaalada u ah farxaan qaroole ay ku geeriyoodeen ismiidaaminta aad daawanaysaan ee goordhow ka dhacday Muqdisho sidoo kalena kuwa kale ay ku dhaawacmeen sida ila xoogaal ay xaqiijinayaan waxaana la soo sheegayaa in qasaaro dhimasho iyo dhaawac oo isku jira askar ka tirsan ciidamada dawladda iyo sidoo kale dad shacab ah inuu ka dhashay weerarka ismiidaaminta ee uu fuliyay qofkan isoo miidaamiyay ee doonaya inuu qaarijiyo taliyaha booliska gobolka banaadir waxaana ila xoogaal ah ay noo xaqiijiyeen in farxaan qoroole taliya uu ahaa qofka ismiidaamiyay xilligii uu kamid ahaa amniyaadka dagaalyahanada al-shabaab ilaahan xoogaalka waxay xaqiijinayaan in qofkan ismiidaamiyay hadda uu isku miidaamiyay amiirkiisa hore oo hadda ah taliyaha booliska ee gobolka banaadir farxaan maxamuud qoroole aqoon fiican ay isku lahaayeen sida ilaaha xoogaalka ay xaqiijinayaan farxaan qoroole wuxuu hadda ka mid yahay saraakiisha ugu muhiimsan booliska Soomaaliya iyo waliba kuwa xagga ammaanka waxaana muddo uu ku gudu jiray hoosha dawladda Soomaaliya asoo isla markaasi darajo hoose ka soo bilaabay dhanka ciidanka wuxuuna hadda darajo ahaan uu marayaa gaashaan la sare taas oo keentay in laga dhigo taliyaha booliska gobolka banaadir farxaan qoroole wuxuu ka mid ahaa xubnaha ugu firfircoon amniyaadka dagaalyahanada al-shabaab waxaana uu ku jiray xubnaha sida weyn ay ugu tashan jireen hogaamiyihii la dilay al-shabaab axmed cabdi aw maxamuud godane iyo sidoo kale saraakiisha sarsare al-shabaab ka hor intuusan ka bixin dagaalyahanada al-shabaab masar qoroole ayaa intuu ka mid ahaa amniyaadka al-shabaab wuxuu 3 qofood oo ka timid dalka Sacuudiga uu ku dilay gudaha suuqa daawada ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho wuxuuna xilligaas uu ku andacooday in 3 qofood ay ahaayeen Ethiopian inkastoo dadkaasi uu dilay ay ahaayeen Soomaali taas oo keentay inuu ka soo cararo dhanka dagaalyahanada al-shabaab wuxuuna xilligaasi gacan yaro u naqday maxamed garbaaje dabadeed farxaan qoroole wuxuu isku soo dhibay dhanka dawladda Soomaaliya wuxuuna mar madax u naqday ciidamada la dhihi jiray ciidamada ruuxaanta kuwaas oo wadan jiray gawaarida loo yaqaan kaaribta kana tirsanaa hay'adda nisa waxaana markii dambe lagu daray booliska Soomaaliya wuxuuna hadda uu yahay taliyaha booliska gobolka banaadir waana sargaal firfircoon oo dhanka uu jiro ka soo baxa